السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا هانتبا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka Qowl Media TV waxa warka idila socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Maajida qodobada aad warka ku daawan doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Buurdhuubo oo u dhaxeeya saraakiisha amniga iyo xarakada al-shabaab ayaa waxaa ka dhashay khasaare ba'an walow aanu jirin warar ka soo baxay labada dhinac Masar iyo Etoobiyana waxay qaadeen tallaabooyin cabsi leh Somaliland waxay ka hadashay diyaarad soo gaadhay deegaanka Buurdhuubo oo Soomaaliya ka timid taas oo sidii gargaar caafimaad oo ka hortag u ah cudurka coronavirus qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeenan subscribe noo saar like iyo share si aad ula socotid wararka iyo warbixinada u dambeeyay soo galino afrilaadka saacadood oo dambeeyay isla marhaankaana aad noqotid qofka u horeeya daawada warkeena iyo warbixinadayada imika aadna waxaad isku diyaarisaan qodobadaas oo faahfaahsan dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka Buurdhuubo iyo saraakiil ka hadashay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Buurdhuubo ee gobolka Godo ayaa fashiliyay weerar ay magaalada ku soo qaadeen kooxda nabadiidka al-shabaab ee ka dagaalanta bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya sida uu sheegay taliyaha amniga magaalada Buurdhuubo Nuur Kadi Ibrahim howlgalkaas ayuu taliyuhu sheegay inay ka hortageen ururka 84aad ee ciidanka xoogga dalka isagoo xusay inay u geysteen khasaare kala duwan taliyaha amniga magaalada Buurdhuubo Kadi Ibrahim ayaa intaas ku daray in howlgalkan uu ahaa mid lagu baacsaday cadowga isla markaana ay ku mashquulsan yihiin raadinta khasaaraha dhawta ee gaadhay al-shabaab sidoo kale wuxuu tilmaamay in uusan jirin wax khasaare ah oo howlgalkaas ka soo gaadhay ciidamada xoogga dalka maadaama ay markii horeba ciidanku hayeen xogta tilmaamaysa in cadowgu ay qorsheynayeen inay soo weerarayaan ciidanka sida uu yiri ma jiraan warar madax bannaan oo ka hadlaya dagaalada ka dhacay degmada Buurdhuubo ee gobolka Godo al-shabaab ma ilaahatan wax wararka ma soo saarin dhinaceeda oo ku aadan dagaalkaasi xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay diyaarad sidii daawooyin oo dowladda Soomaaliya ka dejisay deegaanka Buurdhuubo ee Somaliland ayaa si cad u sheegtay inaysan marnaba raali ka ahayn wax kasta oo siyaasad iyo dano gaar ah ku dhisanba midaas ay uga jeedo gargaarkii dowladda federaalku soo gaarsiisay deegmo kamid ah deegaanadeeda inuu ahaa mid siyaasadaysan ee uusan ahayn gargaar bidaanetinimo Cabdirashiid Ducaale Qambi wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Somaliland oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu eedeymo culus u jeediyay siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka soo suurtageliyay in dowladda Soomaaliya ay diyaaradaasi ka dejiso Buurdhuubo cudurkan dunida ku baahaya si siyaasad la'aan ah oo adduunku wuxuu taageero iskaga geystay taas oo macnaheedu yahay in adduunka oo dhami uu wada gurmado markaan leeyahay adduunka oo dhan baa iskaga gurmanaya waxa la iskugu gurmaday oo wax la iskugu taray siyaasad la'aan ah aan wax ku hoos jirin waxa jirtay waqtigan aynu joognay Buurdhuubo yimaadeen xoogaa dawaa oo ku saabsan coronavirus oo dowladda federaalka ka timid wasiir soo raacisay in la isku gurmado ayaan u arkaa ayuu yiri wasiir Qambi warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Somaliland wuxuuna intaasi ku sii daray haddii xamar doonaysa inay Buurdhuubo wax tarto hay'adaha samafalka marka horeba iyaga u keenay ayay soo raacin lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen halkaas iyo meelihii kaleba geeya oo Soomaalidu way iscaawisaa laakiin tani taas ma yahayn waxa ka muuqata siyaasado awalba xaaladooda siyaasadeed ay dhibaatooyin badan lahayd in dhibaatooyin badan ka dhacdo muujiya taas oo deegaanka dhib ku ah waxa jira qolaya dagaal ogayaal oo reer Buurdhuubo oo xamarna joogo had iyo goor wuxuu carqaladeeyo ka shaqeeyo oo ka dhigaya inay dadka wax u qabanayaan haddii dowladda federaalka ay Buurdhuubo wax siinaysa diyaarad bay soo saari lahayd odayaasha ayay odhan lahayd kala dega wixii wax tar u ah ummadda wax loo baahan yahay weeye wixii siyaasadii ku jirto ama dabada ku hayso dowladda siyaasadeysana waanu soo taagaynaa waana ka soo horjeednaa waxna waanu ka muujinaynaa ayuu yiri wasiir Qambi
Masar iyo Itoobiya oo qaaday tallaabooyin cabsi leh oo ka daray xiisadda labada dal. Xiisadda Itoobiya Masar ee biyo xireenka webiga Niil ayaa kasii daraysa iyadoo Itoobiya ay bilowday difaac kaga hortagaysa weerar ay ka cabsi qabto, halka ciidamada Masarna eegan culus la geliyay. Wargeyska The New Arab ayaa la wareediyay Itoobiyaana ka soo xigteen horaantii bishan ay Itoobiya bilowday inay habka kantaalada liidka diyaaradaha geyso halka laga sameynayo biyo xireenka si ay iskaga difaacdo duqeymo ay ka cabsi qabto in lagu soo qaado. daadguraynta kantaaladan oo weli socota ayaa la filaya in lasoo gabagabeeyo bisha Juun. Itoobiya ayaa lagu waramayaa inay kantaaladan ka heshay Ruushka iyo wadamo kale. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa Talaadadii la kulmay wasiirka difaaca wadankaasi Mohamed Zaki iyo taliyayaasha ciidamada, isagoo amray in ciidanka eegan culus la geliyo si loo difaaco amniga qaranka. Si kastaba, inkastoo ay jiraan dhacdooyinkan cabsida leh islamarkaana Masar ay biyo xireenka u aragto inuu halis ku yahay, haddana xeeldheerayaasha ayaan rumaysan in dagaal dhexmara labada dal uusan muuqan mid dhici kara mustaqbalka dhow. Xiisadda ayaa sare u kacday bishii Abriil markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu soo jeediyay in lagu dhaqaaqo marxaladda koowaad ee buuxinta biyo xireenka, taasoo muddo 2 sano gudaheeda ku shubeysa kaydka biyo xireenka biyo dhan ilaa 18.4 milyan oo cubic mitir. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in kaydka biyo xireenka oo qaada 74 milyan oo cubic mitir u yarayn doono biyaha soo gaadha. Buuxinta iyo hawlgelinta biyo xireenka waxay halis gelin doontaa amniga biyaha, amniga cunnada iyo xaqiiqdii jiritaanka 100 milyan oo Masaari ah kuwaasoo noloshooda ay ku xiran tahay webiga Niil. Waxaa sidaas lagu yiri warqadu wasiirka arrimaha dibadda Masar u diray Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo ku taariikhaysan 1 bisha May. Tani waa xaalad suurtagal ah ay tahay inay halis muuqato ku noqoto nabadda iyo amniga gobolka oo dhan, ayuu yiri jawaab ku taariikhaysan 14 May. Isla markaana ay aragtay wakaaladda wararka AFP ayaa wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya waxa uu Masar ku eedeeyay inay tahay carqaladeeye. Masar Itoobiya ma haysato waajib sharci ah oo ay tahay inay Masar fasax uga qaadato buuxinta biyo xireenka, ayuu yiri. Itoobiya waxay saameyso dadaalo aan caadi ahayn ay ku tixgelinayso dalabyada aan dhamaadka lahayn iyo dhaqanka aan la saadaalin karin ee Masar, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay. Ma jirto wax sabab ah oo Covid-19 uu ku hor istaagayo doorashada Soomaaliya. Ku-xigeenka wakiilka dowladda UK ee Qaramada Midoobay Jonathan Allen oo khudbad ka jeediyay kulanka Golaha Ammaanka ee arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay sanadkan ka dhacaan Soomaaliya. Allen ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay siyaasadda Soomaaliya in sanadka la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo horumar laga sameeyo dib u eegista dastuurka ay yihiin kuwa aan weli isbedelin. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dowladda, baarlamaanka, guddiga doorashooyinka, guddiyada isku dhafka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan isla markaana ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo loo dhan yahay oo fududeeya in doorashada ay si dastuuri ah ugu dhacdo waqtigeeda. Ma jirto wax sabab ah oo cudurka Covid-19 uu ku hor istaagi karo inuu dhaco diyaargarowga muhiimka ah ee doorashada. Waa in si degdeg ah loo shaaciyaa go'aanada muhiimka ah ee ku saabsan habka doorashada, qoondada kuraasta, qeexista deegaan doorashada, qoondada haweenka, arrinta Somaliland iyo maqaamka Muqdisho. Waa arrin wanaagsan inaan iminka maqalno in toddobaadyada soo socda aan gaari karno horumar laga sameeyo arrimahan. Danjira ayaa intaas ku daray in la joogo xilligii dowladda federaalka iyo mucaaradka ay meel iska dhigi lahaayeen khilaafaadyadooda isla markaana ay iskugu tanaasuli lahaayeen. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu mar kale ku celinayo baaqa Golaha Ammaanka ee ah in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan dhismaha Soomaaliya xoogan oo nabada. Hadalka dowladda UK ayaa imanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu cudurka Covid-19 qeyl uga dhigto in muddo xileedka loo kordhiyo, taasoo ay ka digeen mucaaradka iyo dowlad goboleedyada dalka. Ma jirto wax sabab ah oo Covid-19 uu ku hor istaagayo doorashada Soomaaliya. Ku-xigeenka wakiilka dowladda UK ee Qaramada Midoobay Jonathan Allen oo khudbad ka jeediyay kulanka Golaha Ammaanka ee arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay sanadkan ka dhacaan Soomaaliya. Allen ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay siyaasadda Soomaaliya in sanadka la qabto doorasho qof iyo cod ah iyo horumar laga sameeyo dib u eegista dastuurka ay yihiin kuwa aan weli isbedelin.
waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dowladda baarlamaanka guddiga doorashooyinka guddiyada isku dhafka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan isla markaana ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo loo dhan yahay oo fududeeya in doorashada ay si dastuuri ah ugu dhacdo waqtigeeda. ma jirto wax sabab ah cudurka COVID-19 uu ka hor istaagi karo inuu dhaco diyaargarowga muhiimka ah doorashada. waa in si degdeg ah loo shaaciyaa go'aanada muhiimka ah ee ku saabsan habka doorashada, qoondada kuraasta, qeexista deegaan doorashada, qoondada haweenka, arrinta Somaliland iyo maqaamka Muqdisho. waa arrin wanaagsan inaan iminka maqalno in toddobaadyada soo socda aan gaari karno horumar laga sameeyo arrimahan. Danjira ayaa intaas ku daray in la joogo xilligii dowladda federaalka iyo mucaaradka ay meel iska dhigi lahaayeen khilaafaadyadooda isla markaana ay iskugu tanaasuli lahaayeen. waxa uu sidoo kale sheegay inuu mar kale ku celinayo baaqa golaha ammaanka ee ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan dhismaha Soomaaliya xoogan oo nabada. hadalka dowladda UK ayaa imanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu cudurka COVID-19 qiil uga dhigto in muddo xileedka loo kordhiyo, taasoo ay ka digeen mucaaradka iyo dowlad goboleedyada dalka. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa warka Qool Media TV oo idinka imanayay xaruntiisa labaad ee magaalada Hargeysa. waxaana warkeedla socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Cabdisalaan Xasan Cabdirasaaq Maajida. tan iyo intaan ku kulmayno warka xiga waxaan kaga tagaynaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.